عملوا ولا لي الموضوع انه حكوساب سنة ولا لماذا اسلامك يا سيد الله ربئين لحوجيه إلهي وحيري سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تنبع ولا لا طبعا آيات سيد اللغة بالله أركتان إنما أداة حصر بالويرة اللغة العربية معلوم ونقول يا مؤمنين تكري أنبع ولا لا طبعا أما ولا لماذا قدس المصالح ذا يدرها ما لم بإسكت ما ليس ولا لماذا لكن جوغي سيكون أنفعي سأدوني آخرة وولا لماذا إيمانك الأول الوبئي إسلام لماذا صادرت يدبا إلهي وحويري الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ذاتك الرفيق صاحبه ما لنت قيامة عدو بيسكن قرايا إلا كوا الله كعبسك كوا لا لوبئك صاحبه موين وحاتوسينا إني مهمة لهذا مسلمين تو إني ولا لوبان نبي وحو ولا لي عليه الصلاة والسلام مهاجرين يا أنصار ابن القيم سوسو قولي في زاد المعاد رحمه الله تعالى وحوي نبي وحو ولا لي مهاجرين يا أنصار وحكو ولا لي أنس بن مالي قريسة أنس مركز هو يراي قري ودي بالغا وضع نبي رمحوكو ولا لي إني وح استران حتى حل قاهر ويستحل جرين إلى أي كسو دقيس وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض waxaan soo qaadanaynaa maxaa ka dhashay walaalnimadaas xuquuq badan baa ka dhalatay oo muslimiinta dhex maraysa mid waxaa weeye ilaahay dartii in isu jeclaa oo ruuxa markaa jeclaanayso ilaahay dartii u jeclow oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood ruuxii laga hela ruuxa wuxuu helay iimaanka macaankiisu dhadhaminaya midda koobaad waxaa weeye ilaahay rasuulkii cid kasta ka jeclow tan labaad ruuxa jeclaanayso ilaahay dartii u jeclo tan saddexaad gaalnimada nac saad u nacaysa dab in lagugu xoor gaalnimada u nac walaalayaal dhallinyarada waxaan leeyahay gaalnimada ha la naco oo dhaqanka gaalada ha la naco oo gaalnimada ha la naco diin wey wax gaalnimada nac inaad nacday iimaan wey mabda baad rumaysanta nabigu wuxuu kaloo yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo ilaahay wuxuu hadhaynaa 7 ayuu carshigiisa ku hadhaynaya dadku maalintaas oo qoraxdii inta la soo dhaweey la dhiidayo rafaad uu jiro 7 waa harsanaya 7da waxaa ka mid ah 2 ruux oo ilaahay dartii isu jeclaa iyagoo isjecel bay kulmeen iyagoo isjecel waa kala tagay wuxuu kaloo nabigu intuu dhaartay walladii nafsi biyadihi nabi maxamed soo rasuulu sii dhaarinaya waa tawkiid iyo adkayn وحي الله كدار تي جنة جري ميسان إلى إله كرم ميسان جنة جري ما يروح قال جري ما وحي من الرمين إنسان وإيمان طب اللي إذا كهل ما إلى استعران إنسان ما إذا تصاب ويري وحدا سميسان استعران إنسان سلام تدحي نفافي السلام عليكم فهمك ولا المركو قلدمي وقلت إسلام كيراتي وحد أركيسان hadduu ninna salaamo innakoo koox waxaa la wariyaa yuu yaqaan ma aduu ku yaqaan isaguna salaamtii islaamka ajri uu meesha raadinay assalaamu calaykum oo la dhaho waxaa sugan 10 ajri baa laga helay haddii assalaamu calaykum waraxmatullaah ruuxu dhah 20 ajri buu helay hadduu dhaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh 30 ajri buu helay macnaha kale xambaarsantahay waa salaamtii islaam wa idaa xuyitum bitaxiyatin فحيوا بأحسن منها أو ردوها معنى حنبار سنتا وحي كدغانتا مركي كلا لصيفة سيرو روحا دبكو مودوكي السلام عليكم نبدجلي كركايات الروح كو دعي إنو صدبكو سمينين واقرانيس معاني دا صوتان بي حنبار سنتا نمكن لو حلانيها نمكن معنو إقرانيا هاي أناي مقاعدنكو مقراني وفهم كيبا يراضي أو حماضي أقولتي إسلام أياد ضد بضان كوير ولا لياد arrinka labaad ee soo qaadaneen waa in wax la isu door adoo wixii u baahan inaad walaalka u door bido labadan arrin baynu soo qaadan labadaba fi sahih al-bukhari ku jira nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen ayaa nin intuu yimid weynay maxamed waa dhibaataysan nabigu xaasaskiisa uu fariin u diro wax ma haysa waxay tu wallahi waxaan hayo ma jiro allihi xaq kugu soo saaraa ku dhaartee
waxaan biyo ahayn mahay mid kale sidoo kale biyo un baan ahayn ilaa xaasaskiisi dhan waxay dhaheen biyo laan hayna walaalayaal adduunkan aan u suxul duubno een meel la ka soo qaban la'ana horta halkaasuu qiimihiisu joogo nabiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi adduunyadan hadday macno lahaan lahayd alla agtiisa oo welibana ay dhannaan lahayd kanaaco garabkeed ilaahay gaal ma waraabiyo xataa ma waraabiyan kabasho biyo laakiin qiimaysa lahayn muslimiinta laakiin qiimo waxay adduunka ugu leedahay inaynu ku cibaadaysano addunyaa masracatu laakhira aakhiraan ku beeranaynaa meesha marka walaalay adduunka noo suxul duubaan ee xaaraanta dadka qaar ku raadinayo oo ribada lagu raadinayo horta hal ogow wuxuu ilaahay kuu qadaray maayo wax kale ma helaysa fattaqu llaha waajmilu fi dalabu nabi war ilaahay ka cabsado saad wax ku raadinaysaan qurxiyo sharaf wax ku doon wanaag ku doon islaamnimo wax ku doon markii dambe nabigu calayhi salaatu waliyaa iga martigelinaa nin saxaabi ansaare anaa martigelinaa nabigu ninkii reerkii ninkii waa qaado xaaskiisii wuuto wuxuu wax ma haysaa carruurteena yaryar cashadoodii baa haya qorshaa la dejiya fiiri meesha maanta gaaladu ay leeyihiin cilmiga idaarada iyo annaka manajmentiga garanayn qorshe iyo maamul iyo halkan islaamnimada ku jira meeshan qorshe halkan ku jira wuxuu yidhi ciyaalka inoo seexi sasab ninka martiga markuu soo galo ciyaalkiina naga seexdaan wuxuu yidhi cashadiina soo agdhi wax faynuusta hagaajin iska dhig faynuustaba naga dambi keligii haa cuna wax yar baa meeshii lagu hayaa mogta martigii waa iska cunay waa cunay iyakii waxay cunayaan male markii waagu beriyey saxaabigii salaadii aaday subax nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay xale wuxuu la yaab oo u bogay wixii aad ku samayseen ninkii martigiina iyakii waa gaajoodeen gaaja iyakii haysa laakiin saxaabigii waa quuta marka walaa taas midda taa ka daran ee kusoo khatimaya waxaa weeye walaalayaal midda taa ka sii daran nabigu wuxuu walaaliyey sacad binu rabiic iyo cabdiraxmaan binu cawf waa nin ansaar iyo nin muhaajir oo quraysh ninkan muhaajirka haddee waddankiisi kasoo tagoo maka kasoo tag sacad waa la hadlay wuxuu war cabdiraxmaanow war ninka ansaar ugu xoolo badan baa laba xaasna waa qabaada labada xaas intaa fiiriso midda sii qurux badana adigu aada u bogtay iisoo sheeg ii magaco taa waa kuu furahayaa guurso waa ogtihiina walaalayaal raggu xasaasiyad bay dumarka ka qaban wax kale iska daa adigu naagta aada furtay nin inuu kaaga dambeeyo ma jecel waxaa xusuustaa nin baan maalin meel isu raaca qaraabo ah nin buu habaarahayaa oo muqdisho haddii mooryaan iyo dhib baa laga baqaay wejigiisa allaha gube naga soo leexi buu leh anigu waxaan isleeyahay ma nin dhib wadaa markaa hore kuma baraarugin markii suuqii aan tagnoo fadhiisanaan war ninkii muxuu ah wuxuu war baraka beero islaan aan furay buu guursaday ya innaa lillahi wa innaa war miyuu kaa dhacaan miyuu kaa dhaca maya ma dhicina khiyaarkay baa ku furay ninkana muxuu leeyahay waa kuu furahaya walaalayaa walaalnimada wax dhaba ha noqoto oo walaalka aad jeclaanaysa ilaahay darti ku jeclo oo qurba haddii lasoo gawar qabyaalahda ha la daayo oo walaalnimada ha la xoojiyo صلوا وسلموا على نبيكم المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة